marka ugu horeysa madaxweynuhu wuu ku mahadsan yahay marxaladan aynu ku jirnay munaasabadda aynu maanta kala kulannay ee dhowr iyo soddonka sannadood aynu dalkan ictiraafka u raadinaynay dowladdii ugu horeysay ee maanta ictiraafkan ku dhawaaqday uu isugu kan yeedhayna aada iyo aad buu mahadsan yahay sidii madaxweynuhu isaguba uu u sheegay de waa madaxweynihii lixaad ee dalkan soo mara madaxweyne kastaana dee kaalin buu soo buuxinayey nin waliba tiskiisuu soo dhigayey waxyaalo fara badan buu soo qabanayey halkii ay maraysay hadduu cabdiraxmaan ka sii qaaday isagii xukuumadda maanta talisaana nasiibka ay u yeesheen in maanta ictiraafka dowladda ugu horeysay aynu ka helana aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin hase ahaatee waxaa xaqiiqo ah geopoliticska guud ee adduunyadaba ka jira iyo ka mandaqada bariga dhexe dowladayna ictiraaftay ka jira iyo ka inaka regionkan aynu ku jirno ka jira waa suuragal inay dowladana soo dhaweynayaan dowladana aanay soo dhaweyneynin marka ictiraafka maanta waxay laga yaabaa oo xaqiiqa ah in maxaanku idhahda dad fara badan ay cadaawadda inoo qaadaan arrinta cabdiraxmaan ka waramaya dowladda soomaaliya iminka maanta durbey manchursiga ka gashayba ha noqoto oo colaad siyaasiya iyo colaad maxaanku idhahda dagaal labadaba imaneysa taasaa waxay ina fareysaa innaka markaa inaynu taxadir fara badan yeelano